Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada Abno Official. Muuqaalkan waxaan kaga sheekeyn doonaa sida lagu guuleysto ganacsiyada yar. Halkan waxaan kusoo koobi doonaa 3 qodob oo ay tahay inaad ogaato maadaama adigu aad hadda bilowday ganacsi yar misna aad doonaysid inaad bilowdid ganacsi yar. Insha Allah waxaan rajeynayaa inay 3 qodob noqdaan kuwa aad ku anfaca. Qodobka koowaad, faham daciifnimadaada iyo xooggaada. Faham meesha aad daciifka ka tahay iyo meesha aad awoodda ku leedahay. Ganacsatada badankood waxay leeyihiin noocyo xirfad gaar ah kuwaas oo laga yaabo inay siiso iyaga faa'iido ay ugu shaqeynayaan ganacsiyadooda yar. Si kastaba ha noqotee, in aad u yar ayaa awood u leh inay ku fiicnaadaan qayb kasta oo ka mid ah aasaasidda shirkadooda. Marka inta laga yaabo inaad qabato hawlo cayiman oo laga yaabo inay ka baxsan yihiin awooddaada khibradeed, waa inaadan aad uga cuslaanin inaad qabato wax waliba. Taa beddelkeeda, faham meesha awooddaadu taalo, raadsana kaalmo meelaha laga yaabo inaadan ku fiicnayn oo aadan qaban karin oo aadan khibradda u lahayn. 2. Hadaf weyn laakiin bilow yar. Macnaheedu waxa weeye mar walba waxaad lahaataa hadaf aad u weyn taasoo ah inaad meel sare gaari doontid, laakiin aad ku bilowdid meel yar oo hoose. Waa gartsamahan mid ka mid ah qaladaadka ay leeyihiin milkiilayaasha ganacsiga ee khibradda aan lahayn ayaa ah inay doonayaan in ganacsigooda si dhaqsi leh ay u kobciyaan ayna u weyneeyaan. Waxayna u muuqan kartaa fikrad wanaagsan in la ballaariyo ganacsiga, laakiin waa mas'uuliyad lacageed oo aad u badan oo aadan qaadi karin. Haddii aadan qaadi karin culeyskaas, waxaad khatar gelin kartaa shirkadaada iyo burburinta hammigaaga haddii aad isku daydid inaad qaaddo culeyskaas. Marka hubi inaad kor u qaaddo meheradaada si waafaqsan hammigaaga iyo hantidaada, adigoo dhimirinaya ama isu dhimirinaya dhaqdhaqaaqa awoodeed aad adigu leedahay kor u socodka ganacsigaaga. Aadan gelin deymo badan, aadan gelin inaad lacago badan soo deysato. Inta aad haysatid aad si tartiib aad horay uga socotid. Hadaf weyn lahaaw, laakiin tartiibsa oo qarashkaada iyo hantidaada si aayar oo xakamaysan u maamul, waad gaaraysaa. 3. Ku dhis meheradaada ama ganacsigaaga hareeraha hammigaaga iyo rabitaankaaga. Had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad bilowdid ganacsi ku dhisan rabitaankaada, waayo waxay kuu horseedi kartaa awoodaha ah inaad gaarto meelaha aad filanayso oo aad doonayso mustaqbalka inaad gaarto. Ka ganacsi ahaan, mar waliba rabitaankaaga ayaa ah waxaad ku meel mari karto si aad ugu saldhigto waxyaabaha maankaada ka guuxaya. Uma badna inaad daasho ama aad ka quusato haddii dadaalkaadu ganacsi uu ka wareego waxa aad jeceshahay. Gunaanid, ganacsi yar ayaa ka dhib badan socodsiinta markii loo eego inta deyn ay ganacsigaadu uu ka jiro. Inkastoo ay run tahay miisaankaada yar uu ka dhigi karo inay u muuqato mid ugu sahlan in la xakameeyo marka loo eego shirkad weyn, waayo markaad ganacsi yar haysatid way ka fududahay inaad xakameyso markaad shirkad weyn joogtid. Laakiin mar walba ku dadaal inaadan deymo badan aadan galin oo aad si tartiib oo qoyar socod ah aad darajadaada iyo heerka aad adigu taagan tahay horay uga sii socotid. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan aad ku anfacay. 3 qodob waxay kaa caawin kartaa inaad hal tilaabo u dirsatid guusha ganacsigaaga. Fadlan haddii muuqaalka ku cajibiyo, subscribe saar channelka si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga insha Allah.